waxaan leenahay halkan waxaan kala hadlaynaa xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed iyagoo aan wadar ula hadlayno waxaan leenahay waxa ka dhacay dalka social media waad ka aragtaan rabitaanka shacabka ummadda Soomaaliyeed waxaa qulubtooda degay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhammaan marti sharaftu waa u mahadcelinayaa sida xilkasnimada leh ay isu soo xilqaameen xafladatan ujeedadeedu ama yoolkeeda koowaad waxa weeye duco taageero iyo hambalyo iyo inaan ku soo gudbinno dareenka ummadda Soomaaliyeed qabto qaybteena inaga aadan kaasoo ah inaan mar kale la rabno in dib u doorasho ama dib u curasho loogu sameeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaahay mahadiya ka gaadho muddo 4 sano ah waxa hayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aanu maanta halakan ugu xafladan u dhigayno ugu talagalay haddaanu nahay qayb ka mid ah gobolka Sanaag gaar ahaan bari gaar ahaan listari laas qoray gaar ahaan halaaftimu maanta ugu dhigaysa halkan xaflad anagu waxaan ku soo dhaweynaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxtarkii uu dhulka u geystay waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka soo qabanqaabiyey munaasabadan quruxda badan ujeedkeeduna yahay taageero loogu muujinayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddana musharax u taagan inuu mar labaad xilka u qabto ummadda Soomaaliyeed hub 134 sahro qorshe oo Kismaayo ka soo baxday oo kursiga Jubbaland ugu metasha inay cod ka siiso Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dibaanka labaad waa rabo inaan la dardaarmo oo igu metela baarlamaanka aqalka hoose ee dawladda federaalka waa hub 149 Faysal Ahmed Maxamuud oo degmada Baran saddexaad ee baarlamaanka ay ugu metasha degmada Laas Qoray hub سعيد هاي الوطن وحنا سعيد وأنا ابن تشاء هدانا هاي دكتي دكمة الله أصبري يوجد أهان قبل كسنة waxaan ka codsanayaa inay tixgeliyaan ummadda Soomaaliyeed oo ay doortaan madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Farmaajo